السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkaad naga daawaysaan waxay Dhigan Media. Fadlan subscribe, like, share iyo comment. سبحان الله. waxuu xusuusiyay bari baan anagoo jamaaca khuruuj ku baxday meesha leeyahay Minnesota. Saciid yahay Allahu naxariiste raxmatullaahi alayhi ayaa iga yar waxa dhayna soo booqo Soomaaliya halka waa badan yihiin oo barigii dawli المهم ماشي Minnesota tagay marka masaajidkii markii hawshii kalimadii waxay dhamaatay baanan yimid waa isgaranay inaan reer xamar islaahayn kaas balbalaar meesha leeyahay xamar ciyaalka xaafadda mutaqaan ciyaalka xaafadda islaahayn marka wuxuu yiri sheekhu dhibaato ay haysata horta jamaacadu waa kuwa yiraahdo khuruujka dadka nala baxo wuxuu yiri waa ku qasbanahay balahan anaaba khuruuj iska ahaayo guriga waa liga soo yiri marka alxamdulillah daaman meelan seexdo aan idinka helo waaba fiicanta كوده لكن بل waxaan rabaa buu yiri meeshaas cid kale oo igu celin kartaa oo adiga aan ahayn mar ilaahay baa ii ka soo diray qofkaas cid ay wadaadadii dhulkan joogay way ka maqli weeyay sheekadu waxba ka maqli marka ina keeno bal iraaco telefoon iyo waxaasna wax ma tarayaan waa inaad adigu tagtaa guriga tagtaa adigu sidii baa dhacday alxamdulillah gurigii baan tagnay sidaa hadda shaacali sheegay barbariyo iyo ballama aan kala galay iyo inuu ninkan hagaagi doono iyo inuu fiicnaan doono ya ilaahay ba toobada waa aqbalaa in toobadiisa aad qoosho allahu latiifun bi'ibaadihi marka waa badan yihiin sheekadu taasi kuwaasay ka mid ahayd alxamdulillah ninka ala kulli xal gurigiisa uu ku noqdo insha Allah Allah u daan barigaas ay ugu dambeysay gurigiina lama bixin gurigiisa uu iska helay oo dhamaatay الله لطيف بعباد marka shaacali meesha uu leeyahay meeshan ka nimid annaga ma wada ah kulligeen ma isaga sheegay isha Mustafa bir hore ka soo guureeyo isaga yimid iyo kolka dadku runtii dhulka hadalka uu Sheekh Mustafa sheegay dhab ah waa shirkad baabaaday way yartahay saddex markay yihiin laba ayaa faashil ah fil bayt la yumkin ma waa yartahay ba dad isku daa'imay waa yartahay wali waxa arkaysaa dad duqoobay oo isku duqoobay caruur waaweyn isku dhalayo lagu leeyahay meesha waa lagu kala tagay ama waa lagu kala tagay mee wadaadkii waa la eriyay marka Allah naga badbaadiyo sharkaas Allah naga badbaadiyo tawfiiqda Allah na waafajiyo meelaha laga yaabaa in badan oo idin kamida aad yaani shinsanaysaan oo rajaynaysaan oo isleedihiin nolol fiican baa idin ka horeeyay xaqiiqatan nolol wanaagsan idin kama horeeyay تدخل سافر يا لغوية شيء في الأسرة أما دينا حق دمر كان نقطة أما عيال كباب هذا كدران با عرورت هذه أوضا مامولي كرينو وحاوران كرينو كلمته كرينو مركز شربنا وإلهي نقبت بعديه وإلهي إسلام كيني دينتين نقوشي الله نقود دائما إن شاء الله تعالى إخواني وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى رنت إن قولوا بالتقوى وكوها قاقيو ورن متفق عليها تقوى إلهي أمبانا يعني قرياسي وكل دائما كرا أو حقوق ذا أي فوقها الإحسان لبذيبة كيني كرتقف البمركو إلهي كبقو حتى في باب تعدد زوجاتك لبذيو ماشي ومشاكل بدن أرتي مركا الوصول النقضو غيرها أو يعني ذاتك مسلمين تاع إلهي تقوضوا دبري آية التعدد أو مثلا آيات أنت بدن ضد كان أرمها الديدان يكون دقاء ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم مرة ما يشتران فلا تميلوا كل الميل مقاران جماعة التفسير ذيك سومالي التفسير كسبعة وذا دقيقتين وحي كردقان سيدا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة هلكاس لقوا جوك سيدا مرة ما يشتران فلا تميلوا كل الميل مقاران إلهي وحنا في كمال العدالة إنينا سورتوبين وهنا صح بشر باتا بني آدم باتا لا يمكن أن تعدل كل العدل لكن فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة محو إلهي دبلغ وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرق أمرك طلاق عبادنا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما آيات دي عام كأهيد شامل كأهيد بإلهي دبلغ ولله ما في السماوات وما في الأرض
ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. marka ikhwaani taqwadu xusuulkeedu waa biljiddi walijtihaad. iimaanka alxamdulilah ilaah baa ku siiyey, muslim baa tahay, mudiic baa tahay, musalli baa tahay. kulamaa aad daacada ilaahay ku dadaashid fii daatika naftaada aad ku dadaashid, usradaada aad daacada ilaahay aad ku dadaashid, acmaasha saalixada aad la timaadid, iimaankaa kuu kordhaya. iimaanku hadduu kuu kordhana taqwadii baad helaysaa. taqwo haddaa heshana dee iskaba dhaaf yani usro wanaagsanaatay iyo umuur kuu hagaagtay jannadii aakhira ahayd qayb ka mid ahba ilaahay mucajal kaaga dhigayaaba, noloshaadii adduunkaaba janno kuu noqonaysa. sacaadatu addunyaa baaba ilaahay ku siinayaaba bitaqwa allahi tacaala wa taacatihi. sacaadada iyo liibaanta iyo reeraynta iyo faraxa meel lagama iibsado, dukaamana laguma gado, dowladuhuna ma sameeyaan, cid bixin kartana male ila allah. ilaahayna wuxuu ku xidhay helideeda sabab uu yeelay, alaa wa huwa taqwa, inaad ilaahay ka baqdo oo taqwada badsato oo dikrigiisa badsato. kulamaa qofku uu ka dikri badan yahay oo ka taaco badan yahay oo ilaahay uga dhowaansho badan yahay ayuu ka sacaado iyo liibaan badan yahay. xadiidkan saxiixa ah ee kulli aan wada garanaynayna soo wada maray, nebigu laba nin buu sheegay, labaduba ay seexdeen. kullunaa waa bani aadamkao dhan waa seexdaa. wuxuu yidhi idaa naama axadukum yacqidu الshayطaanu calى qaafiyati ra'si axadikum ida huwa naam ثalaaثa cuqad yadribu calى kuli cuqdaة calayka leyl طawiil farqud fain istayqظa fadakara allah inxalat cuqdah fain tawadaأa inxalat cuqdah fain صلى inxalat cuqaduhu kuluha فأصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. للعجب إخواني حديث كان أئمة كل جود وحي كسو دارين أما يكوشا في باب قيام الليل، في باب صلاة الفجر كومي شيء قيام الليل بلغ هذا شيطان كأيا وحكو كنتيا رأسك أما قافية رأس أحدكم مدحيسة saddex guntin oo qaybi oon la arkin. mid walbaba wuxuu ku dabcinayaa oo ku qorayaa calayka leylun tawiilun farqud, habeen dheer baad haysataa, iska seexo. waa waxaana markaad soo gadgadoonto ama aad musqusha u kacda ama saacaddu kugu qaylisa ama telefoonka aad isagaa kula hadlayo, waa cuqadkaa weeye, iska sii jif weli weeye, habeen dheer baad haysataa. marka haddii uu kaco oo uu ilaahay xuso, waana sunna inaad ilahay xusto markaad kacdo, laa ilaaha ila allah dikru llah, hal xabbaa furmaysa, cuqadkii mid baa furmaysa, guntintii mid baa furmaysa. haddii uu weysiistana tii labaad baa furmaysa. haddii uu salaatuleyl tukadana saddexdiiba way furmayaan. maxaa ka ratimaya oo ka dhalanaya? fa asbaxa ayiba nafsi, naftiisu minay ayibtaho wanaagsan tahay oo nashiid ah, wa xayaatu ljanna, sacaada, liibaan, raynayn, farxad ayuu la soo kacaya qofkaas. wailaa hadduu saa yeeli waayo oo uu kici waayo oo dabcigii shaydaanka uu ku dabciyey uu la seexdo, asbaxa wuxuu waa bariistaa khabiiثa الnafsi kaslaan, miday naftiisu ay khabiid tahay oo kaslaanaho caajis ah. طayiba الnafsi nashiiطan waxaa ka dhalanaysa akhlaaqdii wanaagsanayd, wax alla wixii fiicnaa, ama qoys ha noqoto, ama mucaamaladiisii zawjada uu lahaa noqoto, ama caruurtiisii iyo suu dhaqi lahaa noqoto, ama umuurta xataa bannaanka markuu u baxo shaqadiisii uu soo gudanayo, waa nin dayiba nafsi nashiid ah oo farxaan ah oo aan mushkila haysanin. leanna sacaadadii baa ilaahay qalbigiisa ku shubay, waa liibaansan yahay, walow faqiir ba ahaado, walow iyuna waxbaba haysanin. tan kalena maxaa ka dhalanaysa inuu khabiiثa nafsi uu yahay oo naftiisu ay xun tahay, waxba u dulqaadan karin, oo waxaan waxbaba ahaynba wax ka dhigay. marka yuusan warkuu nala sii baahaynay, insha allah mashaayikhda inoo dhameeyey si baabkan laga hadlayo qoyska dhexdiisu ay u hagaagaan,
أعماشي نبوة نبي عليه الصلاة والسلام وأسرة الدحلسية أين كود ذلو وقولي ريركي وحكا سوى الله كل ما عمتدي وقتي بالله كل ما فاجنتي كلي بهالذي لداوني مربى الله كل ما هدي الرمو وحيالها كلو دون والشو وقت ذكرك إلهي الله كل ما هلا سمجتو وريركو لنا يشي مادان أو حلقة التعليم لسميو أو إلهي لحسو أو قرآن لا أخرجتو وحديث النبي لا أخرجتو عليه الصلاة والسلام هل كان محاكا لنيس ملائكتو إلي سودكتو نحريستو إي سودكتو إلهي وحسو مدير كذب ولا لجربي إن بدن أوريرو ومشاكل كوذا اللي حلم واي مدير كذب حلقات ذكرك إلهي مركي أي سميين إلهي دبتدي وكدو القاضي ملائك با ماشي تيمد شياطين لما شوي سكتين أمورتان أمور غيبي وي وحنا لقو قاريا بمجاهدة النفس وانا اللي أقول وحكسة تاساك هذاك درسي هنا دقيشتو تفسير عاوز هو دقيشتو مسجد كتكتيت أما درسي كلا تكون تحت محاضرة سيدنا أدو فرديد واكو سهلنتاي لكن قولي إن هذا إسلامتي عروتي أنت سصوهر فريستان هذا حديث النبي يقرأ كأخرستان وأرن آدو مجاهدة بدن أباهن وأنا أهم أسباب تأقوين يحكوها قاقان وي وأنا سنة النبي الصحابة رضي الله عنهم خير كأن النبي كم مغلان صلى الله عليه وسلم كل يوضع لتجرين خير كاسساء وجود بن جرين أبو سلمة رضي الله عنه حديث النبي كم مغلي والحديث في الصحيح وحم مغلي النبي قوله ما من امرئ مسلم تصيبه مصيبة أي كل عضو أو فيسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون إلى ثم دعاء كد عيستا اللهم أجرني في مصيبتي مصيبة إذا إله وإيجا أجرسي وأخلف لي خيرا منها وحكى خير بدن إله يقول بدل أحد سايا لم يجر إلا إلهي وصيا حديث كيبو قريسي لتغي أم سلمة وزوجتي ساهيد باك مقا شيء مصيبة يسقي ريركي بيبا كنت ميدو يسقي باردنتي أم سلمة أسكشيكينيس رضي الله عنها وحيت لمركي ودنتي أبو سلمة دعادي بان كنت دعايستي لكن وحان سري بيتري دعادا وأخلف لي خيرا سقمت إيغا خير بدن إله ويسي وإلى سورة قلي ويدي كي أبو سلمة ياك خير بدن كربا أخلاق ديسي وناك سنائية معاملة ديسي طيب كأهيدي يا إساو كلابا نقون كرا دعادي وكو دعايستي عدة دي مركي دماتي بيتري ولي باللحظة دي أرنتنا أي دعدي أي تقييد سوي قرته وحيت أنا أو مقار محل أورنجري حركة دي مقدني سماين أف سومالي وبس كسي اللي لو بينابن أيوة نبي يقصوا إذا قاتل يرد ورسول الله صلى الله عليه وسلم بدأت بركن بانو دقي بيتي حشوها ليفن وكفر يستي فخطبني إلى نفسي صلى الله عليه وسلم نفتي سوء بماركتي خذوا يعني وانا مقرشدو markaasaan ku yidhi yaa rasuul allah qof horta muslimada oo mu'minada ku diidi kartaa ma jirto oo taasi arintaasi imaba suubanaba laakiin saddex ciibood baan leeyahay laakiin sheekh hada laha qof walba wixii sheegi maayo laakiin iyadu way sheegtay waxay tiri saddex ciibood baan leeyahay ciibta koobaad waxay tiri anigu waan weynaaday qof weyn baan ahay tan labaadna waxay tiri caruur baan leeyahay oo caruurtu dee عيب ما لكن وثقل وعليش وأنا كوع عليشيو مجهدي أرنت صدحاتنا وأرن قلبي قاهو تكون هذا مادة محسوسة هي لكن كان وأرن قلبي وحان هاي بيت رقف غيرة بدن غيرة مساير بدن بانا هاي هذا يقولنا هوين بدن بدل هذا هاي حتى هذه شوكة مجاملة وحان كبقى يا إلهي قلبي جاي أنتو وحكت على عضو إنه يوعذابه مركع صدح هذا عيبود من ليه هايو إيش كلكم ما بديدين وأنا كنت ديدكم ما دهك ربي ليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هرنتي وأوسهله وحويلي دا أتشيغتي أم بوايق هيسا أم بدأ بانا هاي فلقد أصابني الذي أصابك عيال كان سوماها وعيالك وعيالك عيالي أرنت صدح هذا ومسيرك سوماها فأنا أسأل الله حلك أكتي سوا بس كسهلا دايبا الحل عنده سهل أنا يقين تايبر نقول نقطة وسهل دربي هذا ما ضحكوا قراعنا أما الغيرة سوماها فأنا أسأل الله إلهي يبان بري يا ويدي سنة يايو
فيذهبها عنك وكاك حين إله باكاك حين غير هذا إله باكاك حين. أم سلمة وحيتني فأبدلني الله إلهي وحيقو بدلي خيرا من أبي سلمة وكما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أركا أمهات المؤمنين سيدا سيكون نغطي، بل من أكثر أمهات المؤمنين حديثا بعد أمنا عائشة نغطي رضي الله عنها وأرضاها، وحين تاكوها الشيء وأساسه تكوين حلقة التعليم في البيت. قرية إن آن لقدقين من اللقو عنتيو اللقو عبو وقضاء الحوائج والشهوات كلية واللقو إيو فرفشئية كلام فارغ وذكر إلهي لقى خالي لبات ورن هل كاسي كتم هذا حديث أرنتي هورين شيء قيام الليل ككساب سني ما أركتي أن كاففتين إلى هشيس هكسي هرمرها لسوسي شيء حلقة تعليم كقولي قال لقى سميني أمورها سائلة هي تقوى نغسينيا قولي وكوها. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، اجعلنا من عباد الله الصالحين. تفضل شيخ. فضلا سبسكرايب لايك كومنت and share channelka Hidegen Media.